wasiirka warshadaha Malaako Alawal ayaa sheegay in mashaariicda qaran ee Guwa Bisrat ay yihiin kuwa ka turjumaya hiigsiga qaran ee ah in Itoobiya ay noqoto astaanta barwaaqada Afrika iyadoo kor loo qaadayo tayada warshadaha. የጉባ ብስራቶች የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል የሚወስኑ ለኢትዮጵያ ብልጽግና መሰረት የሚጥሉ Ra-iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed afartii Baagumee 2017 ka tirsan taariikheedka Itoobiya markii uu furay biyo xidheenka weyn ee webiga Abaay waxaa loogu yahay inuu ku dhawaaqay mashruuc weyn oo heer qaran ah oo ku kacaya $30 bilyan oo ku yaala dowlad deegaanka Soomaalida. Mashaariicda ugu waaweyn ee uu ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay dalka Itoobiya waxaa ka mid ah dhismaha warshad nukliyeer ah, warshada shidaalka sifaysa, warshada gaaska dabiiciga ah, garoon diyaaradeed oo weyn, 1.5 milyan oo guri, iyo warshada bacriminta. Wasiirka warshadaha Malaako Alawal ayaa sheegay in mashaariicda qaran ee Guwa Bisrat ay yihiin yoolal horumarneed oo waaweyn oo go'aamin doona barwaaqada mustaqbalka Itoobiya. Si gaar ah waxa uu sheegay inay kaalin mug leh ka qaadan doonaan horumarinta wax soo saarka dalka si loo dardargeliyo isbeddelka qunyar socodka ah ee qaybaha iyo ka fogaanshaha qiimaha sarifka lacagaha qalaad. Waxa uu wasiirku sheegay in warshada bacriminta iyo gaaska dabiiciga ah ay wax weyn ka tari doonaan horumarinta wax soo saarka beeraha Itoobiya, dardargelinta isbeddelka warshadaha iyo xaqiijinta madax bannaanida cunnada iyo weliba daryeelka muwaadiniinta. Waxa uu sheegay in warshada shidaalka sifaysa iyo mashaariicda tamarta nukliyeerka ah ay Itoobiya u sahli doonto inay dhisto awood tamareed oo la isku halayn karo, taasoo xaqiijin karta koritaankeeda iyo barwaaqadeeda iyadoo ka faa'iideysanaysa kheyraadkeeda dabiiciga. Waxa uu xusay in hadafka laga leeyahay in tamarta nukliyeerka ah looga faa'iideysto arrimo nabadeed ay soo dedejin doonto isbeddelka warshadaha iyo tiknoolajiyadda Itoobiya ee dhinac walba. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in 30 bilyan ee mashaariicda horumarinta qaranka ay ka dhawaynayso hiigsiga qaran ee ah in Itoobiya ay noqoto calaamad muujinaysa barwaaqada Afrika dhinac kasta.